بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي مهبضن له كسر دوادا موقال عصب يا عشر عصب وأهبر شد اللقادة تركيا فضلا داود هدات هاي صاحب نوع عصب channel كان سبسكرايب نوصار صاحب بدأ شوكتد نوع حلنا موقال كان ناشر قرايا بد ما سنتين مركوبات مقعي جوا مع المحبوب حسين هل كان النقد دعون السنة وchannel كينا هيرشو ميديا ما أنت وإحنا بلعب إن شاء الله تعالى كورس عصب برشدة لغة تركيا عشر كينا نقول دونا عشر كوبان وحينو كوي بفوري دونا كورس كينا عصب وينو كجهل دونا كورس أوتلاين كاينو قادن دونا يقاب كاينو بران دونا إن شاء الله لغة تركيا من بلو إلا دحدحات إنه كجاري دونا هير قفكا كورس كان كحدنا هذا دماد إلا بلو وجاري كرا هيرسكو في لاشيو إن شاء الله تعالى مركوجه رئيسا وحنسويدين دونا كورس كينا قاب نوعها يوكو doonaa waxaan kaloo isweydiinaynaa iyaduna qofka kooraskan dhamaysta maxaa uu ka faa'iidi doonaa sidoo kale sababta igu kaliftay inaan luqadan turkiga aan kooras ka sameeyno gabagabadiina casharkeena kooban waxaan kaga hadli doonaa kooraskeenan imsa chapter ayaan ku dhigan doonaa insha Allah ama imsa cashar ayuu ka koobnaan doonaa ugu horeyn haddaan ku horeeyo qaabka oo casharkeena ama kooraskeenan ku baxi doono ee ah barashada luqada turkigu waxay noqon doontaa qaab e-learning ah ama qaab online ah ayuu ku bixi doonaa casharada online ka ama e-learning ka waxaan soo bilaabay ka macallin maxbuub ahaan 2011kii muddo xil hadda laga joogo 9 sano anigoo channel kayga kale maxbuub xuseen ku soo bandhigi jiray koorse kala duwan iyo casharo kala duwan oo quseeya culumta businesska haday tahay accountingka haday tahay iyo waliba culumta IT-ga hadda se wixii ka dambeeyay insha Allah waxaan jeclahay in channelkeenan cusub ee Hirisha Media aynu ku wadaagno koorsooyinka iyo barnaamijyada kale ee aqoonta guud ah iyo cilmiyada diinta iyo wixii la halmaanaba kooraskeenani luqadda base-ka uu ku bixi doono waa Soomaali sidoo kale luqadda kale ee casharkeenu uu ku bixi doona iyaduna waa English marka luqadda Englishta ayaan casharada ku soo diyaarin doonaa af Soomaalina waan ku sharxi doonaa marka way noo sahlanaan doontaa ka Soomaali ahaan inaynu fahanno afkeena hooyo course lagu sharaxayo ama luqad lagu baranayo sidoo kale waxa kale iyaduna isweydiin mudan sababta aan u doortay iyaduna course-kan muxuu yahay sidoo kale qofkuna muxuu ka faa'iideeyaa qofka course-kan barta sababahan course-kan aan ku doortay inaan bilowno waxa weeyaan ugu horeyn maadaama aan anigu muddooyinkii ugu dambeeyay gaar ahaan 2 sano ugu dambeeyay aan ku sugnaa dalkan Turkiga sidoo kale 10 sano ugu dambeeyay ee aad iyo aad loogu soo badanayay dalkan Turkiga gaar ahaan Soomaalida u imanaysa waxbarashada dalxiiska iyo waliba Soomaalida kale u imanaysa inay dalkan Turkiga marin ka sii dhigtaan oo ay u sii gudbaan dalalka kale ee caalamka marka sida awgeed maadaama dalkan Turkiga uu kamid yahay dalalka ugu awoodda badan leh ee Islaamka sidoo kale uu yahay dal sida dalkeena Soomaaliya oo kale leh luqad u gaar ah oo aanay dadkiisu ilaa ka ugu hooseeya ilaa ka ugu sareeya aanay jirin luqad kale kugula hadlayaan maralaala markaad madaarka ka soo degto laga soo bilaabo ilaa iyo markaad magaalada gudaha u gashid ama dalka Turkiga magaalooyinkiisa aad gudaha u gashid aad waayeyso qof kugula hadla af kale oo aan ka ahayn afkooda Turkiga sidaa darteed qofku uu ku khasban yahay inuu af Turkiga wuxuu ka yaqaano ama uu garanayaba sidoo kale waxa dhacda arday fara badan oo wax ka barata dalkan Turkiga haday tahay kuwa koolajada dhigtay luqadaha ka barta iyo haday tahay kuwa jaamacadaha dhigta dhammaan waxay caqabado kala kulmaan qaabka ama luqadda loogu sharaxayo markay baranayaan afka Turkiga oo ah luqadda Turkiga yani Turkiga ayaa lagu dhigayaa Turkina waa lagu sharaxaya marka kuwaasna waxaan jeclahay insha Allah ta'ala inay si gaar ah u anfici doonto sidoo kale maxaa laga faa'iideeyaa ama muxuu ka faa'iideeyaa qofka kooraskeenna min bilow ilaa dhamaad barta insha Allah ta'ala Ilaahay haduu idmo waxaan rajaynayaa qofka kooraska nala bilowda lana dhamaysta inuu 80% isku filnaan karo waa qofka jooga Turkiga hadii uu wax iibsanayo iyo hadii uu bulshada la macaamilayaba sidoo kale qofka kale ee jecel inuu aqoon guud ahaan u bartana aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa waayo luqadaha aad ku hadasho oo aad badsataa aqoontaada iyo cilmigaaga ayay sare u qaadaysaa ama nusqaaminayso gabagabadii kooraskeenan imsa chapter ayaan ku qaadan doonaa kooraskan waxaan u qorsheeyay ilaa 60 ka cashar oo min basic ilaa intermediate ilaa halka ugu hooseysa inuu ka soo bilaabayno barashada luqadda waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in aynu la wada socon doono aynu isku xidhnaan doono kooraskeenan bilow ilaa dhamaadkiisa intaas waxa inoogu dhan sharaxaadii guud iyo faaladii guud aynu ka bixinaynay kooraskan cusub aynu bilaabayno barashada luqadda Turkiga inta aynu ku kulmi doono casharka kale ee kan xiga waa anigoo macallin maxbuub oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh